baarlamaanka Soomaaliya 3 sano waxay soo wadeen buuq fowdo dadka Soomaaliyeed ee daawanayo qulubtooda ay ku ciyaaraan maalin kasta maanta ugu dambeysay baarlamaanka kalfadhigii waxaa la rabay in la furo mucaarad yar ayaa joogay oo diidanay inuu kalfadhigan furmo waxay u diidan yihiinna waa iska caddahay in la bedelo ama wax laga bedelo oo la eego dastuurkii hore aan haysanay sidoo kalena aan helno dastuur cusub oo dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin xuquuqdooda inay gacanta ku dhigaan taasoo ah qof iyo cod inay codayn karaan waxay rabaan inay kula laabtaan circle-kii aan ku jirnay 15 sano ilaa 30 sano ugu dambeysay aan ku jirnay mucaaradii maxaafad dalka uma turayaan dastuurka wuxuu u baahan yahay in wax laga bedelo oo la fiiriyo oo sidoo kalena standard cusub loo sameeyo dadka Soomaaliyeed uma baahna buuqan iyo fowdaan adduunka waa kala cod badan yihiin qofka cod badan ayaa meeshaas ku qaadanaya marka in wax laga bedelo kale dadka laga cod diriyahna ayagana waxay fadhiisanayaan geeska kale way doodi karaan asxaab cusub ay samaysan karaan waxaa ka akhrisan kartiin linkiyadan ay soo saaray baarlamaanka guddiga u xil saaran dib u eegista iyo sidoo kale wax ka bedelka dastuurka warbixinada ay ka soo diyaariyeen bulshada qeybaheeda kala duwan marka waxyaabaha doodihii ay sameeyeen iyo meelaha ka soo sameeyeen dadka ay la soo tashteen iyo waxyaabaha ay soo bandhigayaan ayaa ku qoran waa full map oo 770 page ee ka kooban marka qodobadan akhriya waxyaabaha laga qoran akhriya iyo fikrada kala duwan ee dadka ay soo aruuriyeen baarlamaanka loo horgeynaa way bilaabato doodiisu marka waxaa la rabaa baarlamaanka labadiisa gole doodaan oo ayagana fikirkooda ay keenaan hadhowtina la ansixiyo doodikooda bilaabatay doodo kale ayaa jiri doona marka bulshada Soomaaliyeedna maabkan inay soo aqriyaan waa u fiican tahay qofka aan akhrin waay marka bulshada loo soo bandhigay wax cad waay marka waxyaabahan waxay qusayaan shacabka Soomaaliyeed jiilka Soomaaliyeed isbedelka dalka loo rabo iyo meesha rabo dalka inuu gaaro maalin kasta loo xirnaanayo in aan wax laga bedelin sidoo kale hore aan loo socon Soomaaliyana u baahan inuu socoto adduunka la jaan qaado waxyaabo badan ay ku xiran in la bedelo dastuurka oo yani shuruuc cusub oo standard ah loo sameeyo arista